السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa salaamintiina meel kasta aad dowladda ka joogtaan. Muuqaalkan waa hordhac wuxuuna hordhac u yahay softwareka loo yaqaano video scribe kaasoo dad badan oo ku xiran janaalka ama asxaabta ku xiran janaalka iga soo codsadeen inaan kasoo diyaariyo muuqaal. Marka waxaan soo sameeyay action plankii softwarekan muuqaalada aan ka diyaarin doono intee noqon doonaan iyo wax lagu baran doono insha Allah. ayagoo ka koobanaan soo qulanseeyay intii yani aan isdhihi karo oo koorsada waqti gaaban waa lagu qaadan karaa. marka insha Allah codsiyada marka waxaa kamid ahaa yani sida codka iyo isku saartaa macnaha qoraalka oo kale gacanta dhaqaaqaysa yani gacantaada miya su'aalihii ugu qosolka badnaa ee kamid ahayd macnaha gacanta meesha ku jirto gacantaada miya. insha Allah waa arki doontaa inay gacanteeda tahay in kale haddii aad la socoto koorsada insha Allah. koorsadana waxay noqon doontaa sidaatan soo socota. tutorial 1 yani casharka ugu horeeya waxaan ku qaadan doonaa introduction inaan ka bixino video scribe-ka yani habka loo daarayo ama loo kicinayo. qodobka labaad casharka ku qaadan doono waxaa kamid ah inaan ku soo darno adding elements yani inaan sheeyo ku soo darno muuqaalka macnaha haddii ahaa lahayd qoraalo ama sawiro يعني library-ga video scribe-ka ku jira inaan isticmaalno. qodobka saddexaad ee casharka koowaad aan kusoo qaadan doono waxaa kamid ah inaad save garaysato project-gaaga inaad save garaysan karto ama inaad export ku sameyn karto macnaha oo aad daawici karto. qodobka afraad aan soo qaadan doono wuxuu noqon doonaa muxuu ahaay sida loogu soo daro cod haddii ahaa lahayd cod background ah inaad kusoo darto ama cod la soo duubay ama inaad ku soo darto yani voice over wax loo yaqaan inaad sawirka sawirto ama inaad qoraalka qorto kadib aad cod yani kor ka sii saarto macnaha aad ku kor duubto iyaduna sameyn kartaa. waana idinka cudur daaranaya xoogaa waa hirgabsana oo xoogaa in codkii hayo ku jira rajeynaya. qodobka shanaad aan ku soo qaadan doono wuxuu noqon doonaa inaad publish garayso yani scribe-kaaga ama sensigaaga ama muuqaalkii aad abuurtay inaad baraha bulshada kale ku share garayso as online oo kale. marka casharka koowaad intaas ku koobnaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kale casharka koowaad markuu intaas ka koobnaaday yani waxaa rabaa introduction yar inaan ka bixiyo video scribe-ka yani wuxuu u yahay iyo waxa uu ka kooban yahay. video scribe-ka waa software kaasoo lagu abuuro yani muuqaal si automatically ah ama animation ha noqdo inaad sabuuradaas cad ku qorto yani qoraal ama animation barnaamijka horta saas wax u sameeya. sidoo kale waa aragtana rajeynaya muuqaalada ku jira janaalka yani wax uu jeedo waxaas waaye creating yani whiteboard animation automatically. video scribe marka waxaa la create 2012kii waxaana iskala shirkad ku taala UK oo loo yaqaano Sparkle. April 2014 waxay haysatay in ka badan 250,000 oo users dad isticmaala dadkaasoo ku kala nool 135 wadan ee caalamka. video scribe-ka waa mid kamid ah yani wax ku ugu fiican yani engaging loo sameeyo macnaha marka laga hadlayo kale in qiso ama sheeko la rabo in la sheego si visual oo aragti ah waa barnaamijyada ugu fiican ee lagu sameyn karo. video scribe-ka wuxuu leeyahay jiro yani application walba ama software walba wuxuu leeyahay feeders. feederada ku kooban yahay waxaa kamid ah yani wuxuu leeyahay image library yani library ee ku jiraan sawirada inta badan haddii aan muuqaalada aragtay sawirada aan isticmaalayo library-gaas aan kasoo qaataa. sidoo kale wuxuu leeyahay royal free music collection muusigyo badanaa ku jiro oo background loo isticmaali karo laakiin aan inta badan ma isticmaalo oo background shidaan isticmaala ayadana waa leedahay. sidoo kale sawirada ku jira library-ga aad u yar yihiin xadigoodana waa yar yihiin marka haddii aad u baahan tahay sawiro badan waa la gadaa oo company-gaas asaas sameeyo sad iyo package aa loo gadaa. tusaale kale package oo dad package yani waa arki doonaa insha Allah si fiican marka koorsada u galno ayadana waa la gataa. sidoo kale wuxuu leeyahay juice video resolution-ka macnaha videoga habka aragtid yani ma MP4 ka rabtaa standardka videoga oo rabto kale quick ma ka rabtaa waxyaabo badan leeyahay 1080 ma ka rabtaa. sidoo kale publish to web yani marka videoga sameysay inta daawici lahayd asigoo meesha ku jira inaa yani as online ahaan aad yani u publish garayso.
sidoo kale applicationka si offline ahaan waa loo isticmaali karaa. waxaa kaloo applicationka leeyahay in cod over voice yani voice over inuu leeyahay markaa wax sawirta kadib inaad cod kor ka saari karto. sidoo kale inaad music soo geli karto, qoraalada quruxda badan oo kale faraha loo adeegsado kale inaad kusoo dari karto. sidoo kale projectaaga as online ahaan loo save gari kartaa. faa'iidooyinka ka helaya maxay tahay haddii video scribe-ka ama koorsadan haddii aan dhammaysto oo aan barto, faa'iidooyinka ka helaya maxay tahay? faa'iidooyinka aad u tiro badan yihiin. ani waxaan kusoo koobay 3 xabo. kow, social media yani inaad increase ku dhacdo saameynta aad ku leedahay social media haddii ay naqo lahayd inaad adduunka yani wadamo badan platform badan aad qabsato, inaad dad badan ku daawana aad hesho, dad badan oo yani kugu xiran oo customer-kaaga aad hesho macnaha, ama more subscribe inaad hesho. sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay oo kale marketing oo kale inaad rabto inaad sameyso, inaad dadka emotion-kooda yani aad ku bedesho dan wixii ay kaa gataan, ama company kale aad marketing ahaan ugu sameyso muuqaalka, ama xitaa company ama shirkad aad leedahay adi ahaanta xitaa inaad suuqgeyn ugu sameysid waad ku sameyn kartaa. sidoo kale empower sales team inaad sameyso kale, tusaale kale inaad engagement badan aad la sameyso dadka soo booqanaya ama arkaya adiga wax uu sheegaya yani visual storytelling oo kale adoo adeegsanaya. sidoo kale waxay kaloo faa'iido ay leedahay inaad muuqaalo qurux badan aad soo saarto sida kuwa aan soo sameeyo oo kale ama kuwa kasii qurux badan inaad sameyso. ama faa'iido kale leedahay waxay tahay inaad muuqaal adiga aad leedahay inaad abuurto aad YouTube ka soo geli kartaa oo adeegsan karto. lama soo koobi karo faa'iidooyinka ay leedahay. muuqaalka labaad ee barnaamijkan waxaan ku qaadan doonaa 3 qodob. moving around the canvas yani whiteboard-ka inaad marba sawirka meel aageen iyo waxyaabo aan sameyno anigoo sameyn doona camera position, camera leedahay waa arki doonaa, iyo zoom-ka. sidoo kale inaan sawiro soo gelino kuwa aniga aan leenahay oo aniga aan soo abuurnay ama aan soo sameynay inaan kusoo dari karno, inaan adjustment aan ku sameyno yani inaan waxaan animate u sameyno, pause aan dhahno, haddana transition aan u sameyno. muuqaalka labaad asna ku qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. muuqaalka saddexaadna waxaan ku qaadan doonaa sida loo adeegsado effect-yada oo leeyahay. tusaale kale marka wax la sawirayo kale effect-yada ama filters-ka uu leeyahay, element-yada waxyaabahaas ay u dhaqaaqayaan, move in options macnaha. tusaale kale inuu qoraal gees ka soo galo yani waa arki doonaa insha Allah. midka u dambeeya asina wuxuu noqon doonaa inaan isticmaalo wax loo yaqaano move effect yani move effect waxa waaye hal sawir oo noocyo badan isku kala bedelaya asoosan booskiisa ka dhaqaaqanaya loo yaqaana. haddii ahaan lahayd moving and transforming images yani inaad sawirada isku bedelno ama aan dhaqaajino. 4 cashir ayuu ka koobnaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan rajeynayaa yani haddii aad si toos ah ula socoto application-kan aad wax badan aad ka baran doonto adigoo wax badan u adeegsan doona. barnaamijkan wuxuu janad ka bixi doonaa insha Allah ee tutorial-kan isbuucii hal muuqaal inaan soo geliyo insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. haddii wax kale su'aal iyo dheeraad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa email-keena iyo sidoo kale WhatsApp-keena.